Dunida waxa ay la jaanqaadaysaa casriga, wax walbana waxa ay isku beddelayaan si dhaqso ah. Marka la soo hadal qaado habeenka barbilowga u ah toddobaadka farxadda lamaanaha iscalmaday, waa muhiim inay helaan labisyo qurxinaya lamaanaha aqal galaya iyo xitaa gabdhaha sameysanaya xafladaha sida dhalashada, sagootinta iyo munaasabadaha kale. Axlaam Caruus oo ka duuleysa daboolida baahida loo qabo helidda toobka arooska oo noocyo iyo cabiro kala duwanba leh ayaa Muqdisho keentay naqshadihii ugu casrisanaa. Bahda warbaahinta ganacsiga iyo dhaqaalaha ee gal ganacsi ayaa booqday mid ka mid ah xarumahooda Muqdisho waxaana nala hadashay mid ka mid ah howlwadeennada xarunta Axlaam Caruus. Qaarka waxa ka mid ah taashishka dumarka habeenkooda dunida kulina ay isku qurxiyaan burkooyinka iyo qalabka dumarka oo dhan qiimo dhimis oo aan kaga duwanahay ganacsiyada kale ee magaalada Muqdisho ku yaalaan iyo waxyaalaha gaar ah oo anaga noo gaar ah. Muddo waxaan shaqeynaynaa 3 sano ah oo magaalada Muqdisho aan ku noolnahay walow aan soo wadno ganacsiyo ka duwan ganacsiyada Muqdisho ku yaalo. Axlaam Caruus oo aan kaliya ku koobnayn iibinta iyo kireynta toobabka ayaa si la mid ah xarumo ku kala leh Muqdisho. Haddaba maxay kala yihiin adeegyada kale ee laga helo xarumahooda? Waa Nihaal Cumar Iimaan. Xarumaha waxay qabtaan qurxinta dumarka noocyadooda kala duwan sida taashishka, toobabka dumarka, qalabyada dumarka isku qurxiyaan oo dhan, make-upka waxayna ku kala yaalaan magaalada Muqdisho, Siinay, Sayidka iyo shaqaalaha. Hal abuurada ganacsi ee dalka laga hirgelinayo ayaa maalinba heer maraya. Axlaam Caruusna waxa ay hiil u noqotay hablo badan oo habeenkooda xafladda ku dooq habaabi lahaa helitaanka toobabka arooska iyo xitaa kuwa xafladaha gaarka ah.